السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل تونا سمير كستاد شوكتان كسر هذا برنامج جارو كصابسن مدحونا جمهورية الصومال ويهلينيان جدي ظهير قرن ومدحونه دوان مجعبي كورتجا حنون كان هلست بدن الدنيا كوفا في الله يقنا كورونا فيروس أيه وحور بين تلك كلها الله مدحونا الصومال وحنو سي أدق وحالله حنون كان كورونا فيروس يك الصومال لانهان وحوجمل يلا سجوا مدحونه كل إرادة دبعته وليه هاي حنون كني يسيد الصومال لو قضيت اللابون وحكوا على كواسي laga hortagayo waxaanu madaxweynuhu soo jeediyay in dadweynaha reer Soomaaliland ay dhinac iska taagaan sidii looga hortagi lahaa xanuunkaasi soo dhawaada maanta halka waxaan isku nimid waxaan ka hadlaynaa waa arinta xanuunkan adduunka ku faafay virus ilaahay nooma keeno laakiin adduunka dadkii ku noolaa meel kasta jooga adduunka dacalkiisa warwar buu ku abuuray iyo cabsi عالم كانوا كلام ده عدوا اللي بيتال كيد هي تلذي هي اسمه قال كيد أي كيد يرجعون إن أقول تا أدو كانوا كلام ده إلهي مهدي ما أنت دل كيد وعذره كتير متى ساك شلي آيات تجابت بس كم حيل بارة تلو هذه شيء دورنا مدو إلى مالتي أنه ساميني تحدث إربار كانوا تجني إنه جوابها ذلك لا يسوق له وين ذلك إنه ما لبضن بالله يسوق له حدود وين بيننا والدول وين فرنت لكن ما راح سعود كوبديه مرحلة القياسي أي وزارة عافات كل حاجة جيسي إن لا كان تروه حمض الله في العيا عدة سنة وذكر قبته وأدون كورة وستاندره marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka wadada soo maray wadooyinka ah iyo tirada taasi waxay noo sheegaysaa wixii meel kale ka soo galay ee lagu inuu soo gala alla ilaahay marka kama gangelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin laabka meel laba ruuc caafimaad ba waxaan xalay ku soo hooyanay sida xoolaha raacada xalay maxaa lagu soo hooyay waaguna ku bariyay شلي مغرب كوحنا وراعي تكرق وحلا باري أو صومري بقول يسيالقف لما وعاف ما قال وحلا شكله ماري يبي وحلا باري توقف أو صومري كنترول كي أيالين بارستو وعاف ما قال نهر سكالة توقف صومري وعاف ما قال سكالة توقف وشاره شام بقول أفرت وقف بحسن قال لما أنتوا ذا عارف ما قال وحلا وش كيلا جمارك بربرة وحكي سوق السجاري توقف أو بدن كروج مراكبته باشر كمان سوقين وعارف ما قال كلا بارك لو يعضه بقول إيوه استدي صدقف باسن شرا وحلا وش كيلا جمارك قال إيربورت وحكي سوق اللي بقول إيه اللي بيني حنقف وحلا وش كيلا جمارك ترى الساشة قلبت باقو قبل كنا وراعي إلا إما كانوا يحسون رايح هذا كتشوجا ترى ولا سووا تبينيها ولي وحشة كيو كيس معين تحدي كاو حنا صار ولا هي إنه يسوق حد نوركها إلى جوابتها إلى مدحته إلى وزارته تقدرين كونوا نسوي بهذا مركز السبيل نوري ولا وش هاي ذلك إنه سفرية هاي عشان وضعنا ونسكب ذيك نارنت marka ilaahay mahadi waa noo qabna waxaan shaqabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday waxa waxaan magacaabay shan wasiir oo hogaaminaya arrinta oo shaqo qaran shanta wasiir oo kala asaagtiin oo hogaaminayso caafimaadku dakhliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta وزير داخل ودل كورن يقبل هذا يدك ملك ساكن مسؤول مركا حدي لو بهذا تلابن إلى قاضو وليس كوي يسوي صار به أمن جنا سكاهي وزير كأوقاف تذكر أنت أبدا أورك جارسيسا علماء مساعد سدلة وحيلا السجا سكارسين تو لغرها إن وزارة عافمات السجا هوش عودرته وفري وزير كوحبرشة وحيا إن كله لحن كل أرضي لح بقول أو كل أرض 500,000 أرضي
dadka u badan buu hayaa oo ku xiraysan meelo xidhan ardaydana kalaasada qaar bay 80 ugu fadhiistaan boodhinaa jira tiro badan oo laga yaabo habeenka inay 50 meel oo seexdaan xilkoodii waa saaran waxa kale oo inoo xiraysan maxaabiistii oo meel ku xirsan oo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku tallaabin waxa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxa u baahan ciidamadii oo xiriir ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxa ka badan inta qayasha in farishta isku timaada in warso hayn oo u baahan in is ilaaliyaan adduunka oo dhan wuxuu isku raacay malaha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa istabiska leeyahay laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo caalamka oo dhan mas'uulaas inagu meelo badan ururkoodu waxa ku jirta nolol maalmeedkeena saylada xoolaha shaqaalahan oo badan iyagu tagaa suuqyada waxa lagu iibiyay ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu yiraahdo kala adeegtana dadkeena inta u badan iyadoo shaqo tagaa oo ka maarmi karaan hadda waxa loo baahan yahay kamaaran waagi nolosha iyo caafimaadka saynu ilaalinay in la isku waafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynuhu waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka istaag taagno gooraan ku xidhnaa waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baacimisharkii toodu raacaya sidaa waxa ku jirta danteena laga bilaabo imika maalin walba guddigan waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmay oo ku saabsan caafimaadka leh duruufo adag bay ku jiraan dadkeena boqolkiiba waxa laga yaabaa 60 magaalooyinka jooga qutul maalmeedka waa shimbiraha kale way ka lahaan diyaar saaqay fataax sayladu tagaa suuqyada kale u tagaa wuxuu la soo noqon soo hida marka sida dawladda haweeney wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaaleen dees wada xir karo laakiin waa warti qaadan marka haddii alla yiraahdo talaabooyinka saarno soo socda iyagu maanta laga bilaabo sibay u hawlgalayaan goboladana laga soo inay degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meel dadka lagu kala tirmeeyo 60 magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tagi doona meelaha la isla ugu dad badan yihiin waxaan u dir doonaa caafimaad diyaarado badan ma lihin diyaaradaha yimaada waxa ugu badan taargisa timaadee baashir kasta inta ka soo gada xuduud ka badan dadka Itoobiya laga soo qaado 100 ama 200 bay soo qaado waa arkaysan wajaala ka xoogay wajaala 500 ee soo galay labada boqol ka soo degay barku abay urursan yihiin waa la ururin karaa oo la qaban karaa marka waxaanu haynaa xad la wicado ilaa ay ceelaayo oo boosaasagteeda barsaw raaxadka halka ka wareeg boo hadda ka soo wareeg xadka xeebta dib ugu noqon xadka waxaanu kaga mid galnaa oo talaba qaadanaa in dawladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari waa Puntland dhinaca waa Ethiopia waa Djibouti inuu iyaga la yeelana xiriir aad iyo aad u midaysan oo colkan iska goodafaan waa in wasaaradda caafimaadka ee dalka dariskiina ka mid ah oo talaabo isku mid ah qaadaan baynu gareynaa oo la xajin marka maanta waxaan ku yeeray inuu dadkeena warkaa gaarsiino waxaa saa jira kolba talaabada la qaadayo laga maarmaanka ee loo baahdo wasaaradda caafimaadka ee guddidana bixinaysa haddii loo oranayo halkaa hala xidho haddii loo oranayo talaabada hala qaado oo talaabo kasta ah ilaa wuxuu waa dhibaatada dur taale maxay soo la tiraahdaa nabad wax kuma yeeshay dhibta u toogahay in haddii waxaan u soo baxaanba aynaan noqonin dee
xaggan u dhaqaaqnaa inaan wareerin ee inoo jeexnaato tallaabooyin kaynu qaadayno 1 2 3 farinta waraysa aan ka codsanay waxa weeye in loo hoggaansamo awaamirta dhakhtarka kolka hore waxa la yidhaahdaa yareeyo meelaha lagu soo buuqayo aroosiyaa jira qaylaad baa jira xafladaa jira intii laga marin karo waa la yareeyo ilwaa nafteena waxaan ka hadlaynaa taa marka la yeelo waxa gayaalaha ku xiga ee la sheegay in wada ognahay faraxal leh iminka aniga dhakhtarka waxay siinayaan maalmahan ay iga wareeriyeen waxaan ahay dadka markay ama hadlayaan ama meelaha joogaan farahooda meel dhaqdhaaqa badan san yidhaahda hayso inta maa taan baa lagu yiri waa tay ugu dhib badan meel xaadaba gacmaha idinka waa la siinaya amarka aniga amray la hadhan wajigaha u dhaweyn gacmaha idina wada qabtaan amarka dhamaantiin waa wada qabnaa amarka ila caafimaadka ku xidhan marka dadka gacmaha dhaqdhaqaaq badan anoo kala de waa mar walba xusnaad dhaqaajin muraadi hadda ka baxaysa xagga ka qabo marka amarka caynkaas oo shakhsiyan ugu soo socday oo isbaa inta waxaan dhaafay laba qolo ayaan fariinta u sii marayay maanta u soo baxay mid waa culimadu warka ay dirayaan waa mudooba dad baa waxay yiraahdaan cudurkan kuma dhaca muslimka gaalada ma ku dhaca oo wax gaalada inoo kaleeto waa wax هذا البلاد بواسكم عذر قوة قاضي قال يسابنا وكرعي سنة ولا جوه تحدري ولا جوه هرتجي مركا قفنا يا لجوه أمسين عذر كان مسلم كبار عيه وعقابه عذر كان ذاك هو الجرايس سهل جوه تحدري ضد كتحدر كهلا وضع شيء وهلا وضع برا والبدر كل كوين خقاط وعقيدة هنا فضة هي إسرائيل أنت وقايت إنه وقايد كورس ده كدوتك هو شجار والله هي حديث لبا markii ay asxaabtiba joogtay inuu ka dhacay shaam daacuun oo la yiri Umar bin Khadaab hagelna ka soo noqo oo joog taas waa mid qolna waa saxaafada maanta dalku ciidanka quru haysto ee cudurka wax ka qaban kara ee dagaalka geli kara waa saxaafada marka waxa weeye ciidan maanta iyo isgaarsiintu iyo maxaa social media dhamaantii waxaan ka midaysanahay waa naftaadii waxa dhakhtaradu ugu amraan sida u gudbiya yeynaan gelinin maartay war adu aad meel kale ka maqashay iyo jariidad meel kale ka soo akhriday iyo dhakhtarada sheegtay wuxuu ku yiri iyo waa in wuxuu mid ahaada wixii tala lahayo gudida loo keeno wixii feedback lahayo ee war mara talaba taana ku daro gudida lagu soo سألنا ترى هذا إلهي إذا إلهي وين جود بعدين حين وصابح معيان لكن من خلال كواحد قليل إنه تكتوني بقولك يا بقرة تكتوني بقولك يا بقرة كل بطل الله ودي ما أنت الله بهذنا إن نقال عالمك حرير حقوق لا نصبين هذه الدولة تاعي هذه جمعية القرى كده حسين هو تاعي يعيد له نسأله واحد كلا تريان وان أدري إن أرنتها نسخ كاشانو نجنا عاوية أنت وحكوين تعاد إبحي إلهي بن برينا إنه تعاد إلهي بن برينا إنه إلهي نجس تسعره مصيبة دون كر علامات النورتين أنت وحكده وحكيري دونه هوصل على قاره ونجرو إنه كانوا دونه أدوك كلا حرب برعاية تياردي واتلج وشرايو بدو كوي رانيا الصعود كاي رانيا labadii qof ee jaarka ah baa yaraanaya labadii qof ee saaxiibada ahay wax cun jiray isku dhawaanaya baa kala durkaay taa lafteeda qof wala waxa saddex dhaqaalayso ummad waxaan maanta ahay laba dalka saarta waliba rag mid qayra saaxiibada boodbooda mid $10 maanta $20 dab ku saara marka ku waxaysto taa jiray iyo ku faqiirabana aynu waxaan kaydsan aynu ku darro inaynu iskaalmayno maradii la kala xirmay inteeni fuqarada ahayd way si go'doomaysa marka ka taajirka iyo koox waxaya iyo hanti qaran wixii la hayana hal wadaago oo hal isgaarsiyo waxa ka mid tahay talaabanka cusub ee markay nagu soo koray meelaha ay ka soo galaan baabishirku ee Itoobiya ay wajaale ugu xoog weyn tahay iyo magaalooyin kaleba oo wada intaas oo wadada ka soo galaan ilaa iyo halkan ku xirno Soomaaliya xadka uu ka galaayo magaalada ku beeganay wadooyin waa la soo wada galaa kuwa ugu saxmada badan waxay beegnay qolo caafimaadka waa kantaroosho kuwa gobolada kalena gobol walba meelaha ugu saxmad badan ee dhaqaalaha furin karo waa loo dhageynaa
haddii la guddiga qorsheynaysa waa la dhigaya labadaas aynu kala samaynaya waxaa kaloo ka xoog weyn samaynaynaa inaynu dawladaha jaarka inuu xadka wadalaan dhanna ka midowno wasaaradaheena caafimaadku inay arrintaa meel ka wada qabtaan xadka tallaabadiisa halkaa waa la dhaafin lahay waayo xadkeenna ballaaran xad la odhanaya waa la xiri karayaa maaha waa dad isu furan isku mid ah isku xidhan waddooyin bad male buura male gidaarnimo kala xidhna waa dhulkaa ilaahay furan oo waana iyo saynu isu dhow raaban baanu ka deenaynaa iyo meelaha ugu badan inaynu geyno caafimaadka ta kale waxa waliba way qaaliyoobeen waa run waa waxyaalaha inaan ku talagelin dee inugu soo baxsaday waxaan nahay ummadda waxa le waxay cuntay iyo waxay watay iyo waxay isticmaasho dhan dibadda ka keenta adduunku wuu kala xidhbayaa adduunka o dhan baa sii kala yareeray hadduu cudurkan sii socdaa marka waa dhibaato caalam oo dhanna ka qabta waxaynu u baahan nahay hadday wixii dibadda la keena yaraanayaan waxaynu gudaha kaga maarmayno sidaynu u abuuri lahay oonu dib isku noqonaa aqoonteennii hore inuu jiri jiray cudurraa ima jiray waxyaala lagadu baar waa jiray waxbaynu haysanaa waxa weeye waxa qaaliyoobaya kamaarankeedii sidaynu u yaraan lahay tani ma aha wax laga loonaya hebel tallaabo ka qaado waa realityna hor timid oo caalamka hor timid run baynu hor timid adduunka kala xidhmaaya nin waliba wuxuu haystay iyo wuxuu tabcaday iyo wuxuu maskax lahays u dhaqmaayey intaasaa la tusaya tusaalaan ku tusaya imika labada dal adduunka ugu xoog weyn maraykanka iyo china china kusoo horreeyey china si qayla la-aana oo dhib yarba u maamushay waa bilyan iyo 300 milyan dee waa taqa siday u maamuleen wadinka arkaydi sidii qof qura wax u maamuleen waa dictator waa meelo la ismaqal baa la yidhi dadkii waa qof fura tallaabadoodu waxay noqotay mid ay noloshooda badbaadiyeen yurub iyo maraykan oo ugu lacag iyo aqoon iyo saacadda u jeclay ahaa dhibaato haysata waxay ku xiran tahay cultureka siday dadku isu maqlaan dhaqanka iminka dadka qaarkii etoobiyada nala jaarka hadday dawladda maanta ilaa saha la yeelo 90% way istaagaan oo fuliya waa say dadku u kala dhaqan wanaagsan yihiin laakiin dadka egalitarianka dadka iska furfurana siman ee ku adagtayba xaggaa u baydho ee aynu ka mid nahay waxaa loo baahanya maanta inay wax iska bedelaan waa tii aan ku lahaa waxaynu u baahan nahay faqiirkii iyo qanigii yaanay kala goyno hala iscaawiyo waxaynu haysanaynu tashiirano amarka yaanay nagu qasbanaa aan waa caafimaadkeena wasaaradda caafimaad ka qaadan say u eegtay kulba halkan ha yeela waxayna tahay taasi waa maanta waxaan tahay in laga bixi karayo oo la is odhanay maxaa la qaban karaa ma waxaan wada ka xog weynaaday marka runtii baynu hor timid sidaynu inagu isu badbaadinaa waa taala waxaanu tashiilanaa wixii aynu weynana wax laga maarmo samaysana taladana dee intii halka fadhida iyo waxa la yaabaa in qaarkii ka soo baxdo tan kula badgel lahay ilaahay mahadi waxaan marayaa muddo dheer kayd raashin oo dharkeena ka soo gaamaanta nagu badan oo la haya wasaaradda hay-adan kaydkuna maanta intii alla dhisay 2 sano ahayd waxay haysaa kayd aanay weligeed qabanin oo in kayd xoog amaanta laakiin marka qarar ahaan la yidhaahdo la soo taago waxaas dee mudeer bay ku dhammaanaya kaydka aynu haynaa marka loo eego saynu kaydka u han jiray hay-adaheennu labada hay-adu maanta kayd badan bay hayaan laakiin waxay ku badan tahay markaynu nabad qabnay ee aan iyaga cid ku soo jeedin ayuu wax badan noqonayay dee oo waanu ismahdinayna maasha idaacaddan ku sidiina intaasoo tan baa goday intaasoo hektar baa soo go-ay qoladan maxaa yeelaa kaydintu intaasoo tan baanu haynaa haddaad imika tagtaan 4 meelood haystaan way buuxaan 4 aabbahalay dhisteen hangarbaa cirkay maraya mid wala wuxuu ku xidhan yahay saqafka waxna wuu soo socdaa laakiin waxaasi marka loo eego dee waxaan imika inagu soo baxay dee waxay noqonayaan wax laakiin waxaan kuu sheegayaa adduunka hore talo kale usoo martay dagaalada labaad adduunkaa dhacay bad xidhan baa dhacday waad ogaadeen siyaad barre dawladdiisii diyaaradihii halkan la dhacday dhammaan waa la qaxay xitaa guri lama joogin bannaanka la fadhiistay weli lama maqal wax rees waa loo gaajay macluu dhintay waay waa la gaajooday waa run laba la qaday caruur waa laga yaabaa qof lama dhintay laakiin sida dadka qaarkood si baydhabo ka dhacdo kale aynuuma dhicin ee boqolaal meyd ahoo lafa ahoo soo diryaal waayo inagu hantideenu haysanay iyo tiradeena hantideena badan waxaanu haysanaa xoolo nool dadkuna borotiin baa ugu weyn wax u baxsada meel buu ka helayaa maanta si kastoo baad u xidhanta qofna hilbi waay maayo
lacag aynu dadkeena faqriinta ku gaarsiino waxaan isku silsilo waan haddii tala keen kalluunkuna waa naga badan yahay biyo iyo dhul kala digna waan haysanaa waan waayna raaxadii iyo hudheerkii la galaya laga yaabo haddii ay adkaato ilaahay ma keene arkaa iyo kaay dalabtii waa laga yaabo wixii dib la keenay laakiin haddaynu istashilo anu cabsaama qabo badxidho horaa dhacay dagaalo horaa dhacay masiibo horaa laga soo gudbay haddii badu xidhmaan warwar ma qabo raaxa la waayo ma in waayna waxaan ku noolaano horar waan u jaabin laakiin waxay ku xiran tahay fikraddeena saan isu maqlo dad markay tashadaan mideysay wax walba qaban karaan markaa maanta ma garan maxaa dawladda uga meel yaalla waxa dawladda waxa ku meel yaalla warsiinu badbaan dabaano meel taalade intaas waxaa ku eg barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay halista uu leeyahay xanuunka viruska iyo sidoo kale madaxweynuhu digniinihii uu soo jeediyey sidoo kale dardaarankii uu siiyey sidii looga hortegi lahaa xanuunkaasi adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida